Argentina waxay ku guuleysatay Copa America 2024 kaas oo mar labaad ay difaacatay. Argentina ciyaarta ay qaadanaysay ma ahayn mid said u liidatay walow laga ciyaar fiicnaa oo kubadda ay Colombia ciyaarayso ay ahayd bas iyo bobsis. hase ahaatee kagama ay darin oo fursad Martinez helay ayuu ka dhaliyay taas oo Haaland eber ay ku qaadeen koobka. Dhaga kale Lionel Messi bilowga ciyaarta dhaawac ayaa soo gaaray walow uu is adkeeyay oo kubadda uu sii watay. hase ahaatee kubad Diaz loo soo qaaday isaga oo isdhahayo raaco ayuu kufay taas oo ka yeeshay Lionel Messi in garoonka laga saaro. Lionel Messi bedelkiisii garoonka marka uu ka baxay oohin ayuu jabsaday kaas oo is celin waayay. hase ahaatee kulankan waxaa dadaalay Angel Di Maria kaas oo ciyaar fiican soo bandhigay walow ay tahay sanadkiisii ugu dambeeyay Copa America. hase ahaatee nasiib wuxuu u yeeshay inuu qaado uu hooyo. Angel Di Maria markii laga hadlayo waa xidig tayo sare leh, waa niga kaliya ee 5 final ee kala duwan ka dhaliyay gool. hase ahaatee Angel Di Maria isaga oo faraxsan waxa uu ka fariisan doonaa kubadda cagta idil ahaanteedba. Martinez extra time-ka ciyaarta lagu daray gool qurux badan ayuu ku qaatay man of the match kaas oo ku guuleystay top scorer. sidoo kale xidigii ugu fiicnaa waxaa loo doortay James Rodriguez kaas oo Colombia hogaaminayay finalkana keenay walow uusan ku guuleysan koobka. hase ahaatee Copa America waxa uu kala soo hoyday xidigii ugu fiicnaa sanada walow asaga laftirkiisu ay tahay waqtigii ugu dambeeyay uu qarankiisa u ciyaarayo. hase ahaatee kuma uusan guuleysan koobkii oo waa laga qaaday. Hambalyo Argentina iyo dhammaan faniska taageera ee Soomaalida, dhammaantiin aad u mahadsantihiin. muuqaalkan haddii uu ku soo gaaray like isaar followna soo dheh.